dhammaan inta daawanaysa Samadoon official media waxaa idin leenahay mar kale muuqaal kale oo xiiso badan ku soo dhawaada asxaabta waxaan ka codsanaynaa aan xasinimeedina ku dhaxasnimo xawaala loo tagaayo ku dhaxawaalaha badanine subscribe kan anaga baaqirina like-tana sidoo kale share-kana sidoo kale markaan waxaan idin leenahay waxaa idin ku soo talagalnay video aad u qurux badan diyaar waxaan u nahay idinka dhiirinaantiina iyo hablama socodkiina muuqaalka quruxda badan ee waxa xagga kaamirada naga haay ninkii faraha fuday oo lugaha xataa iska dhaafay madax xataa wax ku duubay oo soo hurda xataa wax iska duubay ninkaas farsamadiisa iyo macallin muuqaalkiisa laga qeyliyay master Oslo baadino noo joogo markaan barnaamijka waxaan idin soo talagalnay qayb yar oo dhiirigelin ah dadka ay ka jecel inay wax soo bandhigaan hadana la baqaayo oo cuqdad nafsiga qabo abwaan cabdinaasir dhigjacal ku soo dhawaw dhankay midig bidixna waa fadhiyaa abwaane soo dhawaw waxaan oo wanaagsan marka koowaad waan dhawahay Sakriya Cusmaan Maxamed Sakriya Jacayl sida kala soonida leh oo dan kugu la wadaagayo walaalka garabkayga midig fadhiyo magaciisana yahay Sakriya Cusmaan Maxamed Sakriya Jacayl aad buu ugu mahsan yahay waayo qofka balaaniga waxa loo baahan yahay naftiisa wuxuu taray inuu la jeclaan karo nafta asxaabtiisa kala duwan ee dhalinta iskugu jirta ayagoo wiilal iyo gabdho leh horta dhamaantiin waad mahsantihiin halkaana waa barta Samadoon official media waa bar kalsoonida dhalinta ay ku badan tahay waxaan jeclaan lahaa dhamaantiin inaad friends la noqotaan misna aad like saartaan share gareysaan subscribe-tana aad ku dadaashaan oo dhamaantiin friends baa inoo tihiin oo faaladiina waa inoo wada fresh عمل في عم بافيرهنا فديا مسنا فريهنا أي قريان فكركينا أي فقفعنا أي وضير فريد بودتهين وضفيورا إن فجارها إن يوتيوب كانوا حنجعل لها فريمهن إن تكفر ستان ما دام أنفعت جونية إلا ده هاي إن وحود اللي هي برادك ومغشين كل لأنت إن ديرجليا أو حد قرح بدن سوما دتك سوق السوني معهن دتك هذا ملس كوجي ما دنا أركتي هفنان بيسدريهن قف بسوق السون وحيالها قلبي جيس كده جوحينا جعل مرة ولا بعد بدأ إنه أصو صاروا وهذا ركتان سكرية محمد عثمان سكرية شعيب سود وهذا أصحابت ما دام أصحابت ضد هالأمور كجران هذا هالأمور نمضى إلى بخيان ما حد هاد تيم كانوا يحوديار وياي أنت هالأمور نمضى شجعنا يسي أنت هالأمور نمضى جعل هذه أهل قبلها برامبر كقو عم بحي ويلش جويدا كقو عم بحي ويلش جعل إلى فنك خيرت مجاجل نمضى أصحابتاس محل هذا ما بلنقاد ما توهيسا معاد وهيسا أو كله صاحب أبواني مستر ديرنا ديار موتى أبوان ديك جعلوا إنا هذه مركز أسميسن ما دام هذا كل الصحراء من الله صحراء ديار موتى نكي جعل فنان جعل إنا هيس أسميسن قبل جعل إنا برامبر إيربط محات أدل هذا قعم فرما كوسر وين مثل قعم حرم هرتا أدبر سنتا هاي برادة سكرية محمد سكرية شعيل هرتا هدي فني الروح كل سو حريرة عن بروحه وحكاعد صلا أو وحكلية أظن شخص ما إن أتكون تاجرت مرتي وأيوة مرتدو وعميد مر ولا بقى لوجو هذلا وحيالا الدنيا ده كدعي وحيالا دعتونا هي مرحلة إمن كتاجن مركا مرتدو هرتا قفنا جوني وملهن لكن واقع جستا أي مر ولا بقى هذا الشيء مرتدو وعميد كلية اللي سكوت تاجره waayo waxa bulshada idil ka dhaxeeyo misna mar walba waxay lagu wacyi galiyo waa fanka waayo fanka waa tiir isku xira Soomaali mar walba hay'adda bulshada marka fanku ruux walba waayo ruuxa wuxuu tabanayo hadii uu fanku gudaha u galo wuu ka heli karaa Soomaali marka fanku waa mujtamac idil waxay u dhan yihiin hadda adiga hadalkaaga wuxuu dhigmaa qof walba caawinaad u baahan oo markaas xagga fanka ah ina diyaaradu tahay oo kula soo xiriiri karaan ama aan kula soo xiriiri karno dadkii markaasna soo weydiiyay lambarkaagana feeraha ina u gali karno Soomaan diyaar u tahay aad oo weyn dhalinyarada kale markaas jecel inay wadanka ka baxaan maxaad fariinaad u gudbinaysaa go'aan maadaama ay fikrad leeyna ay naftirkooda hal abuurnimo ay rabaan hal abuurnimadoodan ay si jecleen in magaaladan oo busta ka socoto inay ku soo bandhigaan ay jecelin dibadda inay tagaan ay aaminsan yihiin markaas soo hadli kartaa markaas fankaaga iyo heebada leedahay aad ku soo hormarin kartaa maxad ugu baaqileed horta waxaan leeyahay la qofka wuxuu yahay haduu iloobo muushada wax kala sidoo ku noqda horta way adag tahay halkan waa dalkaada hooyo abwaan horaa muxuu hore u yiri heebad waxaad ku leedahay dhulkaada hooyo waana lama huraanay hagar iyo wax ugu qabo anigana waxaan leeyahay
dalka oo idin baahan yahay dhalin Soomaaliyeed ayaa tihiin asigaba wax idin tirayo asigaba wax tiraydaan inaad joogtiin aad bay u qurux badan tahay eraya kuwii kamid ah misna aan sameeyeen waxaan ka dhawaajiyay Soomaaliya dalkeenu hadlayo misna dhahayo dadkaygii waa kuwa ordayo aniga durgayo badal lagu taadinayo dibadaha ku dayacan diblomaasi ma laho dibadahayna joogan alla dilkooda fududa dadkaygii la dayacay dib igu kaalaya Soomaaliya dhamaan midooba dawladaha dhuldoonka iga difaaca marka dalkiina markaad ka tagtaan dad kale ayaa damcayo Soomaaliya maadaama dadkan dadkiisii oo iska tagay waayo dalna wuxuu ku nool yahay dhalinyaro dal hadduu dhalinyaro lahayn dalkaasi laguma jeedo dal ma ahan dal burbursan meesha ay carrayaan abwaan hadda kugu sii daro waxaa iska leh dhalinyaro oo facooda asaagooda ah wadamada quruxda badan oo jeedid waa aragtiyo dhalinyaro asaagooda sameeysan ayaga wadankooda meesha ka quruxsan lahayn haddii bixidada u sii waayaan macalaha geedihii la harsanay dhibaato ma abwaan ina wadanka laga tagana soo baahi oo markaas jirto oo muuqata in laga tago oo ku dhali karta soo ma jirto هذا وين وايو dalkaada markii aad joogtid iyo markaa dalka la joogtid isku dareen ma hid Soomaaliya waayo laba marxaladood oo kala gooniya ayaad ku kala sugan tahay waayo dalka markii aad joogtid waxa tahay qof aan khiyaari ahayn sidoo doono oo sameey karin laakiin dalkaada markii aad joogtid si hufnaan leh oo hagar la'aan ayaad u noolaanaydaa Soomaaliya waayo waxa tahay qof iska xora meesha doono mari karo wuxuu doono suurta gashan karo marka adiga xorriyada arkayo in aad xorriyadaadii ka doorata meel oo xabsi kor ka feedana wax laga qurux badan yahay marka waxaan jeclaan lahaa dhalinta dalkooda oo baahan dalkooda iska joogan dhamaantood dhalinyaro abwaanka hadalkiisa waa maqasheen waa nagu soo biiri kartiin dad walba markaas dhalfaneed ah team aad u qurux badan dhalinyaro ah oo nala shaqeeyo diyaaraan u nahnay waxaan diideynaa ma asxaabtana daawanaysa waxaan idin leenahay noo share gareeya subscribe-kan ha ilowina like-tan ha ka tegina waxaan idinka codsanayna walaasheena Munaqaali inaa YouTube-keedana aad booqataan subscribe-kana aad siisaan sababtoo ah waa YouTuber kamid ah YouTuber Samadoon waan isla wada shaqeynaa sababtoo ah waxa la yiri gacmo wada jir bay wax ku gooyaano Soomaaliya xaasinimada iska dhaafa xaasinimada Yurub baa ku tagtaanay kowdha asxaan waxaa idinka codsanaynaa fadlan hanaga xaasidina sababtoo ah internet kama ka fuuritiin bas subscribe-ka anaga ilowina like-ta anaga ilowina comment-na sidoo kale share-kana sidoo kale muuqaalada kale xiga si aad markaas idin dhaafin aniga iyo abwaanka iyo team kale Amran iyo Ahmed waa si aragteen dad kale oo si dhimanna saadu aragtaan dad fara badan iyo fanaaniin fara badan oo si dhiman oo hadirtaan aan jecelnahay in teamka ay ku soo biiri doonaan abwaane dhiig jecel maxaad ugu baaqaleed gabagabadaada maadaama waayaha adduunyada waqtigaana qof saacida qofna waayaha xire waqtigana wuu socdaaye waqtiga adigoo ka faa'iideysanaya inta laga faa'iideysan waqtiga faa'iideysan maqli jiray abwaan maxaad ugu baaqaleed aad baad u maasanta horta baraada intana daawanayda waxaan idin leenahay horta bartaani Samadoon official media waa bar aad u wanaagsan misna fikirka dhalinta xumbaarsan waayo qof walba oo qiso leh waxaan u diyaarsanahay qisadiisa inaan banaanka u soo bixino waliba si dareen ay ku dheehan tahay waayo halkan xushmadii tixgelin dhalinta idil loo haya ayaa ka jirta waad aragtaan sida in loo wadaagayna akhbaaraha marka dhamaantiin waxaan jeclaan lahaa in aad soo dhaweystaan halkan misna friends aad u noqotaan fiidiyoyadeedana aad daabataan waxaana taa idin suurtagelinaya Soomaaliyan dhalin mar walba jecel waxyaalaha anfacada goonida idin leh kana soo shaqeeyay waayo qofka hadalkiisa markuu faafreeban yahay misna wax gal yahay mujtamaca ayuu jecel yahay inuu la wadaago marka waxa idin la wadaagayna ayaa wacane ku dadaalayna halkan friends la noqotaan wada jireen nabad gala Soomaaliya meel walba ay joogtiin muuqaalka kale xiga intaan ku kulmi doono Samadoon official media leh sidaas iyo isma dhaafno